Soomaaliya waxaa daashaday faragelin shisheeye musharaxiinta in badan oo ka mid ah waxay taageero dhaqaale ama lacageed ay ka doontaan dalalka qaliija oo tartan xoogan uga jira sidii ay dalkan dad ay iyagu wataan ay u hogaamin lahaayeen ama xukunka u qabsan lahaayeen adiga yaquwa dalalka carabta ma kuwa afrikaana kuwata ma maraykana kuwata yaquwa qarman cabdiraxmaan aad waa mahantahay su-aashaas waa igu soo noqnoqotay marar badan baa la weydiiyey sababtoo ah waxaa dhaqan noqotay nin kastoo siyaasiya oo soomaaliya oo raba kursiga ugu sarreeya dalka inuu qabto inuu dad kale ka raadsado hanti uu ku gato bulshada inuu dad kale ka raadsado hanti uu ku laaluusho si uu kursiga u tago dadka codaynaya anigu waxaan isleeyahay runtii waa isku kalsoonahay waxaan aaminsanahay shacabka soomaaliyeed dhibaatada ay leedahay laaluushka dhibaatada ay leedahay hogaamiye raba inuu kursiga si xaaraana ku tago inay soo arkeen kana warqabaan anigu marka run ahaantii aan si dhaba u hadlaya oo aan waxba dafiraynin waxaana qarinaynin waddan shisheeye oo aan ilaa iyo hadda xiriir la sameeyey oo aan dhihi lacag baan idinka rabaa ma jiro sababtoo waxaan qabaa kalsoonida ah in shacabka soomaaliyeed iyo xildhibaanada soomaaliyeed ee soo baxay waxaana dhiman yihiin aragtida iyo fikirka wanaagsan ay u helin doonaan waayo laaluush iyo kursi la gato iyo cod la boobo meeshayna dhigtay waa ognahay waana ka warqabnaa dadka soomaaliyeedna haddaysan ku baraarugin aysan diidinin dulmigana dulmigu dhammaan maha marka aniga cidna ima wadato waxaan rabaa shacabka soomaaliyeed inay wataan ganacsadaan ahaan jiray ganacsatada soomaaliyeed baana wada aqaanaa waxaan rajaynayaa wixii aan u baahanahay inaan dadka soomaaliyeed keeni doono hadday noqoto qarab iyo hadday noqoto taageero iyo hadday noqoto cod intaba